waxaan soo gaarnay xadiiskana labaatanaad ayaan soo gaarnay. can Muscab ibnu Sacadin qaala wuxuu yidhi ra'aa wuu arkay Sacadun Sacad waa Sacad ibnu Abi Waqaas wey radia allahu tacaala canhu anna lahu inuu u sugnaaday uu arkay fadlan dheeraad iyo ziyaado ama inuu ka sareeyo calaa man cid inuu ka sareeyo duunahu asiga ka hooseeyo. faqaala wuxuu dhahay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay hal tunsaruuna miyaa la idin gargaarayaa oo wa tursaquuna haddana la idinku arsaaqayaa ilaa biducafaa'ikum kuwiina taag daran sababtooda mooye ama dartooda. wa fii riwaayatin warin kalena wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam laga warinayo waa un u gargaaraa allah subxaanahu wa tacaala haadihi lummata ummadan bidaciifihaa keeda taag daran sababtiisa ayuu ugu gargaaraa. bidacwatihim baryadooda allah subxaanahu wa tacaala ay baryayaan taas sababteeda ayaa ummadan loogu gargaaraa, iyo wa salaatihim iyo salaadooda, iyo wa ikhlaasihim iyo niyadooda wanaagsan. marka xadiidkan wuxuu leeyahay ama uu noo faa-ideynayaa saxaabiga loo yaqaano Sacad ibn Abi Waqaas radia allahu canhu wardah. wuxuu ahaa saxaabi aada u qiimo badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ka mid ah. marka Sacad baa xoogo wuxuu isu arkay inuu u sugan yahay dheeraad iyo fadli. markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu canaananayaa waxna wuu u sheegayaa. wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam miyaa la idinku gargaarayaa oo allah subxaanahu wa tacaala uu idinku gargaarayaa oo la idinku arsaaqayaa kuwiina taag daran oo ducafada ah sababtooda mooye. allah subxaanahu wa tacaala ummadan wuu u naxariisanayaa, ummadan wuu u gargaarayaa. waxaana loogu gargaaraya ummadan kuwooda taag daran, kuwooda daciif ah, kuwooda fuqarada ah sababtooda ayaa ummadan loogu gargaaraya. kuwan aad xaqiraysaan, kuwan aad liidaysaan sababtooda ayaa laidinku arsaaqaya, allah subxaanahu wa tacaala uu idinku gargaaraya. warinkan wuxuu leeyahy nabiga calayhi salaatu wasalaam ummadan waa loo gargaaraa. allah subxaanahu wa tacaala ummadan wuxuu ugu gargaaraa kuwooda taag daran oo ducafada ah sababtooda ay ugu gargaaraa. bidacwatihim baryadooda iyo tuugmadooda allah subxaanahu wa tacaala ay tuugayaan taas sababteeda ayaa ummadan loogu gargaaraa, iyo wa salaatihim iyo salaadooda oo rabbi subxaanahu wa tacaala ay u tukanayaan, iyo wa ikhlaasihim iyo niyad wanaagooda allah subxaanahu wa tacaala ayay u baraxtirayaan, niyadooda ay u gooni yeelayaan. camalka ay qabanayaan allah subxaanahu wa tacaala waxna lama wadaajiyaan. marka nabigan calayhi salaatu wasalaam meeshan wuxuu noo sheegayaa hiilada ama gargaarka ummadan loo gargaarayo waxaa sabab u ah kuwooda taag daran oo ducafada ah. bidacwatihim baryadooda oo dadka masaakiinta inta badan allah subxaanahu wa tacaala ayay baryaan, ayay tuugaan, way cibaadaystaan. meesha dadka xoolaha u saaxiib ah ama taajiriinta xoolahooda mashquul ay ku yihiin iyo adduunkan, laakiin dadkan fuqarada ah allah subxaanahu wa tacaala ay baryaan mar walba, way cibaadaystaan. camalka ay qabanayaan allah subxaanahu wa tacaala ay u gooni yeelaan, niyadooda way wanaagsan tahay, allah subxaanahu wa tacaala ay tuugaan mar walba. marka tuugmadaas allah subxaanahu wa tacaala ay tuugayaan iyo baryadaas sababteeda ayaa ummadan loogu gargaarayaa ama lagu arsaaqayaa. marka masaakiintan iyo ducafadan dartooda lagu helay guushan iyo arsaaqdan haddana in la yeeso taas xaq ma ahan. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam taas ayuu diiday. wuxuu leeyahay waxa la idinku arsaaqayo la idinku gargaarayaba waa kuwan taag daran sababtooda wey. ducadooda iyo salaadooda iyo niyadooda wanaagsan allah subxaanahu wa tacaala ayuu allah subxaanahu wa tacaala wax idinku siiyey. marka in la yeeso ma mudno. marka xadiidka intaasaa laga qaadanaya. waxaa la doonayaa dadka fuqarada ah, dadka masaakiinta ah, dadka ducafada ah in loo naxariisto, yacni wanaag loo sameeyo oo garabkooda la qabta ayaa la doonaya.